nolosha wax qof bini aadami maro oo dhan buu nebi maxamed maray calayhi salaatu wasalaam. nebi maxamed wuxuu noolaa isagoo laga xoog badan yahay, wuxuu noolaa isagoo in yaroo awooda haysta oo marna wax jebiyey marna la jebinayay, wuxuu noolaa isagoo xoog batay oo iska dhiciyey oo guusha helay, wuxuu noolaa isagoo ummadda u taliyey, wuxuu noolaa isagoo aan cidiba la soconin ee keligiiya, wuxuu noolaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo baahan, isagoo aan 2 bilood oo isku xigtay gurigiisa dab laga shidin, isagoo inta gaaja gurigiisa ka soo saartay raggii ugu dhadhawaa kuwii ugu waaweynaayo iyana gaaja soo saartay la kulmay. goor duhur gurigiisa ka baxay isagoo dabadda iska maraya abubakar ku soo baxay. abubakar buu yidhi war maxaa gurigii wakhtiga kaa soo saaray? abubakar wuxuu yidhi gaaja ay soo bixisay ilaahay rasuulkiisiiyo. nebigu wuxuu yidhi anna gaaja ay soo bixisay. cumar bay haddana la kulmeen. cumar baa la yidhi war maxaa gurigii wakhtiga kaa soo saaray? wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo gaaja ay soo bixisay, annana gaajaana soo bixisay baa la yidhi. axadu saxaaba baa arkay markaas intuu saddexdoodiiba u yeedhay neef yar u qalay. marka intii cuneenna wuxuu nebigu yidhi latus'alunna yowmaidin can innaciim. aakhiro waa la idin weydiin doonaa waxaanoo nimca ah.